waaweyn oo soo kordhay saaka ayaynu barnaamijka ku faahfaahineynaa. ugu horreyn waxaynu ku bilaabaynaa ninkii Trump ahaa oo u muuqda inuu gacmaha taagay sidoo kalena aqbalay in mar kale wada hadallo foolka foola ay isugu yimaadaan iyaga iyo Iran oo markaa xaaladda taagan la qaboojiyo kadib laba habeen oo isxigay oo labada dhinac ay weeraro isku asqaysiiyeen. haddaba Trump maxaa ka keenay arrinkan? waa tii labadii habeen oo lasoo dhaafay isaga uu bilaabayay weerarka. culayska xaguu ka yimid? haddaba dhammaan warbixinadaasi wixii laga qoray ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa. haddaba ugu horreyn waxaynu ku bilaabaynaa Al-Jazeera waxay leedahay Mareykanka waxa uu qaatay go'aamo muujinaya inuu joojiyay dhammaan howlgalladii dagaal ee uu kula jiray Iran. wargeyska weyn ee la yiraahdo Axios ayaa soo xigtay mas'uuliyiin sare oo ka tirsan Mareykanka. Washington iyo Tehran waxay ku heshiiyeen xalay in la joojiyo weerarada la isdhaafsanayo sidoo kalena kulan la isugu yimaado isbuucan. haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dhinacyadu ay go'aansadeen inay joojiyaan gacanka hadalka kaasoo Mareykanka uu sheegay in iyagu ay yihiin kuwo go'aansaday inaanay la dagaalamin mar kale Iran. Washington iyo Tehran ayaa waxay ku kulmi doonaan sida lagu heshiiyay xalay Talaadada lagu soo aadan oo berita ah magaalada Doha si markaa loo dhammeeyo khilaafaadyada ka jira marinbiyoodka Hormuz. marka ninkii Trump ahaa wuxuu leeyahay wax allaale iyo wixii howlgallo dagaal iyo waa joojin. Talaadadana waxaa la kulmaynaa wada hadal Doha lagu qabanayo arrintan Hormuz ee soo noqnoqotay. haddaba marka arrintan Hormuz maxay tahay ciladeeda oo dagaalka labadan habeen oo la soo dhaafay ay labadan Iran iyo Mareykanku ay jugtiisa gelinayeen. Iran waxay leedahay annaga heshiiskii maaragtay la gaaray heshiiska maaragtay qabyo qoraalka ahaa oo aan weli la dhammaystirin isfahamka ahaa ayaa waxay yiraahdeen wuxuu noo ogolaanayaa qodobkiisa shanaad inaan annagu meesha maamulno amnigeeda securitygeeda waxeeda laakiin inaynaan wax cashuura qaadin muddo 60 maalmood. xaqaan u leenahay inaan niraano wadadan ma mari kartid halkan soo mar markabka hadduu diidana jugtaa ka gelinayna. marka Mareykankuna wuxuu leeyahay awooddaas ma lihidiin. waxa ilaaliye leedin yiri inaad dadka u sheegtaan oo tiraahdaa miinooyinka meelaha ku jira iyo waxan waaye laakiin markab meel wanaagsan soo maraya oo meel wada fiican soo mari kara ma celin kartaan. marka buuqa marka meeshaas uu ka soo bilowday oo maaragtay haddaan idin tuso waxaa qoraysa saakay jaridda la yiraahdo New York Times ayaa saakay qoraysa waxay leedahay isfaham la'aan heshiiskii la gaaray ayaa waxa uu keenay in dib loogu laabto dagaaladii iyo dhibaatadii maalmihii la soo dhaafay dhacay. jaridda New York Times waxay leedahay haddaba duqeymihii habeenadii la soo dhaafay ay isweydaarsadeen Mareykanka iyo Iran waxa uu ka dhashay isfahmi waa iyo mugdi ku jira heshiiska iyadoo la sheegayo dhinac walba sida isagu ay la tahay inuu wixii u fasirtay. marka dhinac walba soo isagu rabo u fasirtay leedahay jaridda. Mareykanna wuxuu leeyahay idinku awooddaas ma lihidiin iyadoo waxa leedahay qodobku noogu qoray anaga awoodda iskale. marka hadda dib waxa loogu laabanaa qodobkii shanaad. Talaadada berito magaalada Doha waxa loogu ballamay inaan xabad kale la isku ridin oo bal wixii maaragtay meesha ku qornaa la isku raaco. Iran waxay tahay qodobka saa u qoreen. Mareykanka wuxuu rabo noo sheegaa ninkii Trump markuu waa wareer labadii habeen oo dagaalka dhacay maxaa sababay? shidaalkii kacay wax kasta kacay ma carabtii qayle bilaabeen Bahrayn nagta laga saaray Kuwait la duqeeyay saldhigyadiisii la garaacay wixii oo dhan cabaadkii isqabsaday. hadda wuxuu yiri roonay ka nagalaaf haddana ka joogno odaga haddana waa waxba madaxa soo maraya hal weeraro iska leeyahay
ma la aamini karo asaga alla weerar markuu dhoo ayada hal iska celiyo maba sugayaan bay nimanka ilaalada kacaanka Iiraan amaray haystaanba haddii America yimaado ama cid kale soo weerarto Iiraan inay iyaguna jugta ka geliyaan ayatullaahiga maba la weydiinayo taas marka sheekadaas marka waxa loo balansan yahay talaadada Brita in maartay Dooxa la isku arko bal qodobkan la isku mari waayay oo nin walba si u fasirtay oo labadii habeenar soo dhaafay jugta la isaga geliyay oo marin biyoodkii Hormuz xaaladiisu ay xun tahay ayaa marka saasa marka waxa leeyahay inta bal talaadada laga gaarayo hawshu ha sii socoto hawshu maraakiibtii wixii yaxsii maraan talaadada marka hal is arko sidaas marka shaqadii ku sii socotaa la leeyahay bal haday marka wax soconayaan marka qodobka isaguna halkaas kaga gudbaynaa sheeko kale oo cajiiba jirta nimanka Israa'iiliyiinta ah imtixaan waay dad carabtan Israa'iil ilaahay ku imtixaaray waxay ka qeylasiinaysaa Lubnaan waxay ka qeylasiinaysaa reer Gaza hadda Suuriya saakay afkii furad war qaramada midoobay war adduunkiyo war nimanka ayaa naga qabta marka nin wax falaqeynaya wuxuu yiri war nimanka ayaa naga qabta may ku qabsoomayaan nimankan hana la ka qabto baba ku qabsoomaan nimankan hana la kala qabto ayaguna jug ha gaarto adigana jug gaarsi ka waabteen maahan hadday fursad kugu helaan wallahi ka tahay wax ka celin kara bijira way ku dul fuulaanayaan baatan marka saaka Suuriya cabaadka ka baxay markaas carabti kale waxay leeyihiin mar boqolaa laga cabaadina nimankan waqtigoodii ma la gaarinay leey 2027 markii la gaaro waxaa sheegay Sheekh Axmed Yaasiin waxaa carabtoo dhan hadda akhristaan nimanka waxaa la gaaray gabagabadoodii boqolkoodii sano waa dhamaanaya boqolkii sano maraa nimankan hadda mid walba isku taag xagga ka dhac haddaba marka Suuriyaanka saaki maxay sameeyaan idin akhriyo haddaba warkii ugu weynaa waxa leeyahay Suuriya waxay dalbanaysaa in loo soo dhaqdhaqaaq caalami ah in adduunyadu ay u soo gurmato si loo joojiyo weerarada Israa'iil ay ku hayso dhulkeeda haddaba warbixinta way sii socotay waxa leeyahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Suuriya saakay waxay soo saartay war ay leedahay Israa'iil waxay sameynaysaa xadgudubyo iyadoo bartilmaameysatay gobolada kala ah Qunaydra iyo Darca oo ku yaala koonfurta wadanka Suuriya waxay sheegtay in Israa'iil ay duqeymo ka sameysay halkaas madaafiic ay ku riday sidoo kalena waxay argagax gelisay dadkii rayidka ahaa ee ku noolaa halkaas waxay ku soo garaacday sawaariiq waxay soo kale ku tumatay qarannimada Suuriya midnimadeeda iyo dhuleed ayay ku soo xadgudubtay waxay ugu baaqayaan maanto Isniin ah in qaramada midoobay iyo caalamkuba in markaasi la ilaaliyo qawaaniinta caalamiga Israa'iilna laga qabto si aysan dhibaatada u sii wadin Israa'iil meel uga baxayna waa malay leeyihiin Suuriya Lubnaan Gaza dhulka dhan naga ku feesteenayna waa meesha aan rabnay dhahan inaan ku ballaarsannaba Israa'iilka dhulkaan oo dhan aan carabtaan oo dhan aan maartay afka ka garaacno Suuriya marka waa qaylinaysaa war adduunkiyo qaramada midoobay iyo adduun hadday wax tarayaan Gaza ka celin lahayd meesha nimanka Iiraan oo kala rabaan sideedaba nin oo taqriir qoray oo caraba wuxuu leeyahay waxaan ogaanay uu leeyahay nimanka wax iska dhicin karaba nimanka sunniga waxba ma taraan uu leeyahay ayaga bas islu gooy nimanka shiicada ah nimanka iska dhicin karo uu leeyahay wuxuu leeyahay nimanka shiicada u fiirsado leeyahay Hezbollah Iiraan iyo Houthi nimankaas jugtay ka geliyaan waxa sunni oo dagaalamay oo tabar waayay reer Gaza ka jiro leeyahay inta kale waa cawaadayaan afkaas ay kala taagayaan waana la soo galay adduunkii qaramada midoo xagee joogtaa iyo adduun ma jiray leeyahay hadday wax dadka celinayaan mar hore go'aamadii qaramada midoo soo saartay yaa ku dhaqmay
markii dagaalkii gaza socday ha sheegin marka nimanka cabaadkoodii yaa baxay kale ee saakay wararka cusub ka mida ninkii Netanyahu ahaa wuxuu yiri waxay ciidankaygu ku guuleysteen inay burburiyaan god 200 oo mitir ah oo dhulka hoostiisa oo ay isticmaalayeen Xisbullah koonfurta Lubnaan godka marka waxa ku jiray hubaa ku jiray sawaariiqa ku jirtay ayagiyaa ku jiray waxbuu daldalay marka godkaasu sax miya mise sax ma marka hore arintu soo odayo ka hadlay arintaas haddaba wuxuu leeyahay Netanyahu Israa'iil waxay burburisay dhulka hoostiisa god ku yaalay oo Xisbullah ay lahayd dhererkiisuna uu ahaa 200 oo mitir wuxuuna ku yaalay koonfurta Lubnaan haddaba ciidamada Israa'iil waxay burburiyeen uu leeyahay godkaas oo 200 oo mitir ahaa koonfurta Lubnaan haddaba wuxuu sheegay ra'iisul wasaare Netanyahu iyo wasiirkiisii gaashaandhigaba labaduba waxay sheegeen in godkaasi la burburiyay haddaba waxaa la yiri godkaas waxaa loo isticmaalayay hubka iyo walxaha kale oo ay halkaa ku qarsanayeen nimankan la yiraahdo Xisbullah runmiya marka hadalkaas godka ma burburiyeen god hub ugu jira Xisbullah ma burburiyeen Xisbullah intaysan jawaabinba waxaa soo booday dowladii Lubnaan wasiir dowladda ka tirsan Lubnaan waa nimankii heshiiska Washington ku soo galay waa labtirku nimankii waxay leeyihiin war waxaan noo been badan ninkan Netanyahu iyo wasiirkiisiba beenta socota maxay tahay adduunka yaa been loo sheegaa godka ay burburiyeen maxay tahay wasiirkii afku furtay haddaba marka arintu soo sheekada la yaab kale beesha ka socota wasiir ka tirsan dowladda Lubnaan wuxuu sheegay Israa'iil inay burburisay goobo taariikhi ah oo ku yaalay koonfurta Lubnaan haddaba warbixinta way sii socotay waxa la leeyahay goobaha la burburiyay waxay ka mid yihiin goobo ay u aqoonsatay kal hore qaramada midoobay in ay yihiin goobo taariikhi oo dhaxal ah oo adduunka uu leeyahay waxaana diiwaan gelisay hay-adda qaramada midoobay ee UNESCO haddaba waxaa la sheegay inay ku yaaleen magaalada xeebeedyada haddaba waxaa la sheegay in markaasi ay burburisay Israa'iil waxaana meeshaasi ay ahayd meel ay yaalaan raadad diini ah sida lagu yiri warbixinta wasiirka waxaana si wada jir ah u ixtiraamayay muslimiinta iyo masiixiyiinta ayaa la yiri ninkan wuxuu taagan yahay warriba ku god iyo Xisbullah iyo waxba burburinay wadanka meelihii taariikhda u ahaa oo adduunka taariikh ahaan loo aqoonsaday oo UNESCO ka diiwaan gashan ayay nimanku cagta mariyeen maxay tahay waxa marka la burburiyo leeyahay dowladda Lubnaan qaylinaysa walaalahay warbeesha Xisbullah wax laga burburiyo baaragne taariikheeni dhanba ka baabiiyeen arkaysa marka meeshaan marka waxa waaye hawshaas halkaas ay baraysa xaalku halkaas uu joogaa waaye marka saakay oo isniina marka waxa la leeyahay dhanka kale shidaalkii ayaa qaaliyo Hormuz soo maxar min maalmahan shidaalkii waaba qaaliyo baa leeyahay haddaba arintu soo warbixin kooban Al Jazeera ay qortay waxa leedahay shidaalkii kor ayuu u kacay kadib markii ay soo cusboonaadeen weeraradii Mareykanka iyo Iiraan ay isdhaafsadeen haddaba maanta oo isniina ayaa waxaa la sheegayaa shidaalku inuu kor u kacay waxaana la sheegay in ay ka dhalatay weeraradii iyo hanjabaadihii ay isdhaafsadeen maalmihii la soo dhaafay Mareykanka iyo Iiraan haddaba heshiiskan dhinacyadu ay hore u gaareen ayaa wuxuu iska noqday heshiis aan waxba ahayn oo mar walba wixii la rabo la iska sameeyo dagaal aan dhamaanayn oo mar walba la isku bilaabi karo taasi waxay keentay hubanti la'aan in shidaalkii uu kor u kacaya la leeyahay marka shidaalkii adduunka saakay isaguna oo isniina waxay leedahay Al Jazeera kor u kacay sababahaas darteed marka waxa la leeyahay heshiis saxaba meesha ma yaalo dad wada wareersana inta isqabtaan beerka iska tumaayeen haddana ayaga la joojinay hadda kulli waxay ku balansan yihiin talaadada
inay isugu tagaan Dooxa waxa ka soo bixi doona laba yaqaano haddana intaan talaadada la gaarin isku bilaabayaan hadday rabaan marka xaalku marka halkaasuu maraya wararkaas waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee saakay saarnaa warbaahinta oo aanu idin la wadaagnay haddaba fakarkiina iyo aragtidiina waa muhiim adiguna barnaamijka ka qayb qaata dad badan oo fariimo noo soo qora aragnaa aad ugu mahadsantihiin barnaamijkana like gareeya oo share gareeya dadka daawada iyo dadka like gareeya iskuma dhigmaan marka fadlan barnaamijyada like gareeya ninkii fakar dhiibo kara fakarkiisa ka dhiibto marka barnaamijkii subaxnimo saakay inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa haddaba barnaamijka haddaad ku cusub tahay channelka subscribe ka ilooba youtube-ka facebookna follow garay inta aan mar kale barnaamij kale ku kulmayno asxaabay